kulanti wacan oo wanaagsan daawadeed ku soo dhawaada wararka dib u warbixinada arrimaha caalamka. Midowga Afrika oo ku baaqay xakameyn xilli xiisad cusub ka taagan gobolka Tigray ee Itoobiya. Midowga Afrika ayaa ku baaqay in la muujiyo xakameyn buuxda oo xiisadaha ay sii kordheen xiisadaha ka taagan gobolka waqooyi ee Tigray ee dalka Itoobiya. Kadib inta duulimaadyada iyo warka sheegay dagaallo cusub oo dhex maray ciidamada federaalka iyo dagaalyahanada Tigray-ga. Gudoomiyaha guddiga Midowga Afrika Maxamed Cali Yuusuf ayaa muujiyay walaac weyn oo ku saabsan dhacdooyinkiisa oo ku booriyay labada dhinac inaysan qaadin tallaabooyin dhaawici kara kalsoonida isla markaana arrimaha taagan lagu xalliyo wadaxaajood. Wararka ka imanaya caasimadda gobolka Migena iyo magaalooyinka kale ayaa tilmaamaya cabsi sii kordhaysa kadib markii duulimaadyada la joojiyay shalay iyo maanta. Dadweynuhu waxay u carareen bangiyada si ay lacagaha ugala baxaan iyadoo qaar badan oo bangiyada ka mid ah ay la daalaa-dhacayaan baahida, taasoo keentay safaf dhaadheer iyo niyad-jab suuqyaduna sidoo kale waa la buuxdhaafiyay iyadoo dadka ay keydinayaan alaabooyinka aasaasiga ah. Sicir bararka sare ayuu u kacay. Alla ayaa laga soo warinayaa aagga marka uu ka taagan yahay Tsalementi ee waqooyi galbeed ee Tigray-ga iyo sidoo kale qaybta Koonfur-bari, inkasta oo dhinacaan war si rasmi ah soo saaray ilaa iyo hadda. Gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa adkeeyay muhiimadda ilaalinta heshiiska Pretoria uu hogaaminayay Midowga Yurub, kaasoo la saxeexay 2 bishii Noofembar sanadka 2002 una dhexeeyay dowladda federaalka iyo xisbiga dimuqraadiga dadka Tigray-ga ee TPLF.